يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، waxaynu ka soo hadalnay khudbadii hore asbaabu thabaat cala diin, waxyaabaha inaga saacidi kara diinteenna islaamka inaynu ku adkaano ee duulimaadka lagu yahay. khudbadeennani waxay baraarujinayaan inuu qofka muslimka ahi dareensanaado casrigan aynu marayno qaraabada diinta. alqurba fi ddiin, qurbada waxaa looga jeedaa cidlowga qofka islaamkiisa ku dhaqmaya diinta si saxa u haystaa. waxa uu dareemayaa wehelyaraan iyo cidlo iyo inuu qaloonayo. neefka xoolaha marka xoolaha aanu garanayn ku dhex darmaabaa la yidhaha wuu qalooday oo cidloonaya. لكن هذه الغربة غربة غير سابقة. بريجي هذا السيدو إسلامك غريب وهاتن ما أنت ويكدونت وغربة في أهلي. إسلام كيبا أهل كيسي كو أبترسنة غريب كوه وحياد الله يا بدوي. لو القضب أينو براروج الله هنا تأوه الرئيسة وحويان أحاديث كوسا أروري بابك. وحينو ما أنت أركي نسير شيء يا وح لقى فايدة يوم. qodobka labaadna waxa weeye madaahil alghurba, qurbadani wax jira miyay tahay hadda. iyo qodobka saddexaad oo ah sifaat alghurabaa, dadka diinta qariibka ku ah ku cidloonaya ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan ku kaliyeystay tilmaamaha ay leeyihiin. axaadiidtaas saddex xadiid baynu soo akhrinay, waynu ku celin doonaa. waa saxiix. nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddu la hadlo waxa uu waxa iman doona waqti qofka diintiisa haysta ku dhaqmaya uu ka dhigan yahay qof dhimbiil dabahaya. intee lagu sii hayn karaa qofkaas? waa arrin adag weeye. tusaale uu bixinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu tuuraabu u dhowaanaya iyo inuu ku noolaado ku dhinto maca kulaylkeeda. xadiidka kale saxiixa ee nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ibn mascuud baa warinaya, waxaa idinka dambeeya ayaam zamaanu sabr, waktigii sabirku muhiimka u ahaa ee qofka diintiisa haysta maalmaha adag ee diinta la ysku nacayo iyo ku dhaqankeeda. wuxuu la mid yahay xagga ajriga 50 asxaabtiinnan ka mid ah, 50 shahiiday oo asxaabtiinna ka mid ah. dee 50 asxaabi oo shahiiday ajriga ilaahay agtiisa ku yeelan karaan ayuu casrigan adag qofka diintiisa ku adag cidduu doonayaba ha ahaadee ajriga in leeg buu helayaa buu nabigu u bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam. xadiidka saxiix, xadiid kale isaguna waa saxiix weeye, sahlo bnu sacd baa warinaya. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, waa mucjisaadkii nabiga ka mid. islaamku wuxuu bilaabmay isagoo qariiba, qariibnimadaasaanu ku noqonayaa dadka islaamka qariibka ku ah iska haysta ee aan ka tegin baa wanaag leh iyo janno. kuwaasuu nabigu u yabohay calayhi salaatu wasalaam. dadka qurabadaa markii la weydiiyeyna wuxuu uhi waa kuwa naftoodana hagaajinaya dadkana hagaajinaya. faa'iidooyinka axaadiidta waxaa ka mid a kow, nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa cad. waa xadiidku min dalaa'il nubuwa ayuu ka mid yahay nebinimadiisa waxyaabaha ka markhaatiga ah. wuxuu sii sheegay baynu aragnay aynu indhaha ku haynaa. adduunkaa dhane maanta aynu joogno waxaa 200 oo dowladood meelahaasaa ka dhisan baa la yidhaahdaa, 250 waa islaam. wax calan shareeco in laysku xukumo u taagan xataa dowladaha islaamkii ma jiro. arrin aad u cajiiba weeye. waa qurbadu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. waxaa labaadoo axaadiidani ay daliilo yihiin mar walba adduunkanaynu ku noolahay dadka inta faraha badani diin la-aan bay ku sugan yihiin. inta diinta haysatana intooda badani waa caasi. wax soo jireen ahaa weeye qur-aankuna ina barayo. ilaahay baa wuxu uhi wain tudic akara man fi lardi yudiluka can sabiili illaah. dadka intooda badan xaggay u badan yihin haddaad raacdo diintunbaad seegi.
dadku xaggaasay u badan yihiin iyo waxaasaa caalamiya iyo beesha caalamka iyo waxaa ku dawakhi waa meel badaha la dhex dhumbaday ka mid yihiin iyo naaraha la galo iyo cagaa laga gubto caalamkan aynu maanta ku noolaha wax yar baa ka dhiman baa la yidhaahdaa 8 bilyan ama 8,000 oo milyan macnaha waa 7.8 200 baa ka dhiman rubuc baa muslimiina ugu dhowaan macnaha waxaan 2 bilyan gaadhay 3/4 ama 4 meelood marka laga dhigo 3 waa gaalo inta islaamkee soo hadhay firqado badani islaamkii way ku abtirsanayaan laakiin way hallaabeen sida shiicadii wixii la mid ah inta soo hadhayna intee caasiya waxa qilla qaliila bay noqonayaan tira aad u yar inta diintooda ku dhaqmaysa ka run sheegaysa magaaladeena imika aynu joogno marka salaada ka dareertaan dib u eeg ama marka jumcada la soo galayo ragga dhex jooga eeg waxa oranaysaa malaha meesha waxa ku nool aqaliyad muslima inta masaajidada galaysa ilaahay caabudaysiiyo inta aan kaba warhaynin mid qaylaya mid shaqaysanaya mid qaylinaya war malaa qilla qaliila malaa dal aqaliyadiisu islaamtay baad joogtaa baad ka fikiraysa marka halkaasaa waxaa kaaga soo baxaya istintaaj waxaasoo dhan markaad u geysa yusaawi waxay la mid tahay inta diinta ku dhaqmaysa waa in aad u yar arrintaa saddexaad xadiidku inoo muujinaya waxa weeye ciidamul ajri maca ciidamil balaa abaalmarinta u weyn iyo darajada la gaadho ilaahay agtiisa balaayada u weyn bay ka agdhowday darajooyinka waaweyn dadaalaan laguma gaadho marka qofka islaamkiisa ku adag ee qariibka ku ah ee ka run sheegaya ka daacadda ah abaalmarin weyn buu ilaahay agtiisa ku leeyahy sidaa uu nebiguba axaadiidta ugu shaaraynaya calayhi salaatu wasalaam arrinta afraadna waxa weeye ibtilaagan iyo imtixaankan iyo dhimbiilahan maxaa dadka loo marinaya waa kala shaandhayn iskaga wada abtirsanayaan uu dadku keebaa mu'mina keebaa munaafiqa keebaa dadaalaya keebaa diinta ka dhabhayn taasuu ilaahay kala shaandhaynaya subxaanahu wa tacaala intaa markaynu soo dhaafno madaahirul qurba in qariibnimadani jirto maxaa markhaati ka ah waxa markhaati ka meelo badan markaynu eegnaabeynu arkaynaa mid waynu soo sheegnay miiska ma inoo saaran yahay kitaabkii ilaahay ugu talagalay in lagu dhaqmo iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee fasiraysa hadday tahay dowlad hadday tahay shacab hadday tahay qabiilo midna ma yaalo wax kale ayaa ummadda nidaam iyo xeer ay ku dhaqmaan u ah idan markaynu dadka nidhaahno war kitaabkii ilaahay wayna dhex yaallaa fiqigii islaamiga ee fasirayey iyo aqwaashii culimada iyo axkaamtii baa taalla dadka waxaa laga yaabaa ka ugu dhow inuu ku way fiican tahay laakiin hadda casrigan aynu joogno looma bisla macnaheedu waxa weeyaan ma aqbali karayno ma suuroobayso ayuu qofkii isla soo taagayaa waa midda labaad ee muuqanaysa waxa weeye qurbada la xidhiidha fi lakhlaaqi wasuluuk dhinaca dhaqanka dadka dhaqankoodii muxuu noqday maxay xadaaradu haystaan maxay ilbaxnimo u haystaan akhlaaqiyaadkii islaamka noocyadii kala duwanaa ee shucab aliimaan qaybaha iimaanka ee dhaqankaa uu nebigu sharxayay wax badan baa lagugula yaabayaa oo la odhanaya taa maanaan arki jirin ay naga jooji waa qurbo la xidhiidha iyaduna xagga caqiidada iyo mafaahiimta islaamka see loo fahmayaa wax badan baa fahamkii saxiixa uu lunsan yahay waa qurbo la xidhiidha xagga taqaaliidka iyo caadaadka waa qurbo la xidhiidha xagga walaaga iyo baraaga dadka haddaad weydiisay yaa nacaba yaase gacala midba waxbuu kuu sheegayaa islaamkuna alwalaa walbaraa qaybaha caqiidadu ku jira yaa shisheeya yaa sokeeya yaa walaalatiino isku abtirsanaysa islaamku iimaanku ka dhigay ummadaheenna balweydii qayb waxay ka odhan dee waa annagu intaanu isku reereebanay mid kale waxay ka odhan dee intaanu isku dalnahay ee aanu isku qowmiyadnahay waxaasaa lagu daldalayaa waa dadkii muslimiinta ahaa ee islaamku u abtirsanayay ayaa mafaahiimtaas kale waxaasoo dhan waxay muujinayaan markaynu soo ururinno qurbada uu nebigu sheegayay iyo la yaabka islaamka dadkiisii ay la yaabayaan markaan shisheeyaba la gaadhin inay tahay wax jira waxaynu u gudbi lahayn markaa innagoo ku soo dhowaanayna sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin qurabadu oo runtii sheegaysa inay raganimo iyo dadaal badan dadkaasi samaynayaan iyo adkaysi badan iyagoo isha ilaahay iska eegayo rabbi iska dhisaya mabda'ooda iyo diintooda xaqaana ku nool sifaadkooda waxaa ka mid ah atamasuku bisunna wa in raqiba canha annaas sidaa dardaarankii nebigay qaateenoo sunnaha ay ku adagin alqur'aanu waalxadiid caduu calayha binawaaji diinta qabsada buu nebigu lahaa gowska dambe ku haysta
waxaa la isku dayay in afka lagu kala qaado laga hadliyo si aad u tufto taasee caan ku yihi waana midh aada u muhiima wax la iska sheegtana maaha camal weeye la taaban karayo oo la arkayo sifaadkooda waxaa ka mid a yuslixuuna anfusahum waannaasa aydan dadaal bay samaynayaan oo dadka tusaalay ugu yihiin khayrka waxa wanaagsanna dadka way u sheegeen iyaguna tusaalay ku yihiin marka xadiidka nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam yuslixuuna anfusahum dadkooda naftooda horta ugu horreynba hagaajiyaan ummaddana inta ka soo hadhay ayay u dadaalaanoo diinta ay ku saxaanoo ay hanuunka ku toosiyaanoo kaalintii nebiyaday qaataan sifooyinkooda waxaa ka mid ah waynu soo kookoobaynaa annahum najow min fitnati alqunuudi walyas waxay ka badbaadeen fitnada ah in la quusto dad badan baa casrigan aynu ku nool iska quustay waar islaamkan wax soo noolaanaya iyo dowlad isu taagaysa midna ma jiree dadkeenna aan dhinac ka raacno taana way ka badbaadeen oo waxay og yihiin arrimaha inuu ilaahay gacanta ku hayo subxaanahu wa tacaala cisiga iyo sharafkana isagu uu siiyo ummadaha imtixaanna uu iska socdo waxay ka nabadgaleen min fitnati alcajalati wa qilati sabri inay degdegaan oo midhaha dadejistaan taana way ka nabadgaleen oo wixii ahayeen ay tuuraan iyo dhimbiishaa uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxaanay leeyihin innaga wadiifad baa inoo taalla watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri xaqa inaynu ku dhaqanno dadkana gaadhsiino natiijadana ilaahay baa gacanta ku haya subxaana wa tacaala waxay ka nabadgaleen min fitnati shubuhaat fitnada in qallooc dadka ay diinta u gasho ama ay diin ka dhigtaan waxaan diin ahayn taasoo firqadaha iyo kooxaha ku badan waana tuu nebigu kasii digayo sala allahu calayhi wasalam markuu lahaa ummaddani waxay u qaybsamaysaa 73 qaybood qolunba xaqa ku suganoo waa kuwa nebi maxamed iyo asxaabta waddadoodii haya alkitaabu wa sunna sunnaha rasuulka iyo qur-aanka uu sharxayo dadka haysta manhajkaas booye inta kale fitnatu shubuhaat baa ku dhacay shubha madmadow baa diintii ka galaoo waxay u qaateen waxaan diin ahayn bay diin moodeen markaasay biyihii saafiga ahana ka baydheen xumbana ku dhegeen casrigana waataynu arkayna waxa badan ee gaaladu falsafada ah ee mulxidnimada iyo diin la-aanta ah ee khuraafaadka ah ee dadka lagu baahinayo loo xayeysiinayo xoolaha lagu bixinayo waxaa looga jeedaa taa shubuhaad in ummadda lagu furo way ka nabadgaleen waxay ka nabadgaleen fislada khatarta badan casrigana loo yaqaano fitnatu shahawaat dadka oo rabitaankoodu hogaamiyo oo qoloba meel laga helo dhallinyarada meel baa laga helayaa mutacalimiinta culimada madaxda qoloba meel loogu hagaagaabay leeyahay marka shahwadooda la istaarayo ee furaha shahwada lagu istaarayo shahwada Soomaalidu wax kale u yaqaan laakiin waa rabitaanka qofku oo wixii uu doonayo uu jecel yahay daba cararo kaasa shahwa la yiraahdo idan taana nabigu ka digay sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiixa ahaa oo waxa uu leeyahay ummadan anigu gama cabsanayo in faqri laayo iyo gaajo laakiin waxaan idin ka cabsanayaa in bahasha adduunyada la idin baahiyo oo la idin badiyo kadibna daba carartaan oo ku tartantaan kadibna xoolahaas idin halaagaan iyo adduunka iyo waxa danaynaysaan sidii reer banu Israa'iil iyo ummadihii idinka horeeyay oo maalkaasi u halaagay marka waxa dhici doona dadka hormuudka ummadda waa inay diintooda u seegaan iyo inay ku dhaqmaan iyo mabdooda inay ka run sheegaan intuu qofku mansab doonayo iyo madaxnimo mid kale maal buu doonayaa mid kale magac buu doonayaa manaaficda kala duwan intay u wardayaan bay ka siibanayaan taa uu nabigu tilmaamay diintaas sida dhimbiisho kala ah markaas aad arkaysaa hebel shalay iyo maanta hebelkan shalay nasiib ahaa maanta nasiib uu yahay wadadii waxba ka duwa waa la helay sida uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha sii fashilinayana waxa kamid ah maanta waxba la duubaa oo la record gareeyaa qofka hadalkiisii 5 sano ka hor 10 sano ka hor mawaaqiftiisii wixii marka la isa soo dhigo 2 shakhsiyadood ama 3 shakhsiyadood ama 4 shakhsiyadood ayuu kala noqonayaa oo kala nooc taana waxa keenaya fitankan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo shahawaadka u badan ayaa maalin bay steerinkiisa dhan u leexinaya wa na'uudu billahi min dhalik wuxuu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiix ah musnad imaam ahmed ku sugan min xadiid abi barza wuxuu nabigu inama akhsha calaykum ash-shahawaat allati fi butunikum wa furujikum ana waxaan idinka cabsanayaa hamada iyo hunguriga ku sugan calooshiina iyo cawradiina
qofku calooshuu la ordayaa wuxuu cuni lahaa ama dhaqan lahaa ama dhigan lahaa ama hamadiisa asa eriyeysa wa mudilaati alfitan wa fii riwaaya wa mudilaati alhawa iyo fitnooyinka wax luminaya وسي علامتنا يا رسولك صلى الله عليه وسلم سلفنا الصالح dadkeennii wanaagsanaaye culimadii markay arkayeen duufaanadii waxa duulduulaya dadka aad bay uga digi jireen arribaha imaamkii la oran jiray Sufyaan ath-Thawri ayaa wuxuu lahaa istawsu bi ahli sunnati khayra fa innahum quraba dadka sunnada nabiga ku taagan calayhi salaatu wasalaam khayr isu dardaarma oo khayrka isku adkeeya oo wanaagga isku xejiya وغرباء بلي سيدا النبي شجع عليه الصلاة والسلام سنة دي صح لا يعد هاي ستا ما أنت ولا لا يا بيا هوس بالو إيجيا ولا إسكوي دارنا يا فضيل بن عياض عابد كي وينان يسقون وحول أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال أهل السنة لقول شيء يا وحوي قفك جرته علوشي سو حق لا يا حلالا مرهدو حاران عن نقضى بلي سنة دي النبي هنون كيسي تونا ما هيو إذن وحقول يا بشارة إن النبي قلت له عليه الصلاة والسلام مر والبا أمضا إنان لقوا طائفة على الحق ضد حق كتاجا وعدة صور عدة وررين ستونا آني وحبك قرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يدين تمر والبعيد شديدين يسا أو أمضا وعسبونا يسين يسا أو حاصل طوفانا كصهاري دونا هو أسانا غلبدا iyo guusha ayay yeelan doonaan marka waxaynu ku soo ururinaynaa arrimaha aynu sheegayna mar hadaynu arkayno qofka raasamaalkiisu ama ummadda raasamaalkeedu iyo ciis iyo sharaf iyo gobonnimo waxa waa diinta waa aqeedada saxda ah marka dadku haday ku cidlaystaan iyo haday ku yaraadaan iyo hadii lagu goynayo wax laga tanaasuli kara ma aha hadaad iyada tuurtood ka tagto dalka iyo dadka iyo dunyada midna waxba kuma tarayo midna kaama badbaadinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala amaam allah adduunka ilaahay ummadda uu ku fadeexadaynaya intaan aakhiraba la gaadhin maantana waynu arkaynaa caalamul islaami halka ay marayaan iyo sida loogu ciyaarayo iyo sida maatidoodii looga qaylisiinayo iyo sida muqadasaadkoodii loo duminayo kullu daalika waa maxay waa diintoodii oo qariib ku noqotay arrimo badan oo 100 sano ka hor aan la aqoonba maanta caadi noqday lama aqoonin 100 sano ka hor in shareecada islaamka lagu dhaqmo wax laga wada hadlan ma ahayn mar labaad wax laga wada hadlan ma ahayn xuduudahan maanta yaala ummaddu way isu furnaayeen caalamul islaami oo tareenka Turkiga ka yimaadaan ma ka iman jiray oo bariga galbeed u socon jiray mar labaad wax la yaqaan ma ahayn jihaad la'aan iyo dadka inay gaaladuna muslimka ku jihaadaan muslimkuna iska fadhfadhiyaan arrimahaas oo dhami waa waxaynu arkayno oo hadii aanay dadka muslimiintii toosin oo aanay dib isugu tashanin oo aanay sixin tarbiyada ummadoodii iyo ubadkooda ka sii darayo ilaahay baynu ku barayna nabadgeliyo allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة